السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتنتهين ما أنتوا قميص وأنا سد أحد بشر طلبات جولاي سنة كلابا كن يشان يلا باتنك مقال كان وحن ربائنا ندخل وذاقه قضبة فربضان أو مهمة وحوجه الرية أفرتن وضيال درولada taraagada ah ee wadanka Mexico ka yimid Mareykankana gawaaridaasi ku dhex kaxeynayay oo leysinkii laga laabtay sabab la xiriira sharcigii luqadda Ingiriiska qofku inuu ku hadli kara ahayd oo qabtay arintaasi waan idin wadaagayaa sidoo kalena darawal gaari traag ah oo sabtidii 6 qof ku dilay wadada I-20 ee gobolka Texas kadib markii uu qirtay inuu hurday isagoo gaariga kaxeynaya maxay yihiin dambiyada lagu soo ogay shirkadii uu shaqeynayna sidoo kale baaritaan ayaa lagu bilaabay sharciyo cusub oo koodii bishan ka dhaqan galay gobolada Florida iyo Texas muhiim ay u yihiin dadka degan goboladaasi iyo waliba dadka gawaarida ku dhex kaxeynaya labadaasi gobol ee Texas iyo Florida sharciyadan ka dhaqan galay talaadadii oo kooda bisha ahaydna waan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhaw waxaan ognahay Trump dhamaadkii bishii afraad ee Abriil inuu saxiixay wareegtadii uu dhahayay darawalada gawaarida waaweyn ee taraagada waxa qasab ah inay luqadda Ingiriiska ay ku hadli karaan aqrin karaan isla markaana communication ay la sameyn karaan booliska istaajiya ama sidoo kalena goobaha weyd stationada marka lagu baarayo sidoo kalena ay aqrin karaan calaamadaha wadooyinka ku dhagan si ay ugu suura gasho in si badqab ah ay gawaaridaasi ay ku wadaan sharcigaasi waxa uu dhaqan galay 25kii hadda bishii dhamaatay ama 26kii aan iraade waxaana sidoo kale hadda muuqanaysa in isla markiiba la bilaabay in la dhaqan geliyo hadda waxa la sheegayaa in 40 darawalo gawaarida taraagada ah oo wadanka Mexico u dhashay laakiin Mareykanka ku dhex kaxeynay waxaan ognahay ganacsiga wadamada Canada Mexico iyo Mareykanka inuu isku furan yahay oo gawaarida taraagada ah isaga gooshi karaan alaabahan ay u kala gudbin karaan marka 40 kan darawal oo Mexican ah waxa laga laabtay leysinkoodii kadib markii la helay iyagoo gawaaridaasi taraagada ah wado luqadda Ingiriiskana aan ku hadli karin marka sharcigii ayaa qabtay laakiin dhamaantoodba waxay u dhasheen wadanka Mexico marka waxa jirtay in wasaaradda gaadiidku ay sheegtay in ay la dagaalamayso dadka aan haysan dhalashada Mareykanka ee gawaaridaasi wada luqadda Ingiriiskana aan ku hadli karin xitaa gobolada Mareykanka qofku hadii leysin gobol kale uu wato oo uu doonayo in uu bedesho ama uu doonayo inuu gaarigaasi kaxeeyo waxa qasab ah in uu cadeeyo gobolka uu degan yahay sharcigaasi waa kii dhaqan galay sidoo kale oo qofka looga baahan yahay guriga uu deganaa heshiiska uu saxiixay ama utility-ga uu bixiyay ama tax return-ka uu xareeyay waxyaabahaas oo idil waa tii loo baahnaa oo goboladu ay bilaabeenba 2 bilood ka hor marka Mareykankana way qabanaysaa dadka gobolka aad joogto gobolkaasi ayaan ka soo guuray wali leysinkii ma bedelan taraag ayaan wadaa haddana gobolkan ayaan deganahay arintaasi waa ay soo dhamaatay waa inaad cadaysaa gobolkaasi inaad degan tahay haddii kale leysinkaada haddii uu ka dhaco laguma cusboonaysiinayo marka 40 kan darawal hooshooda haddii aan ku sii socdo waxa qabtay sharcigaasi luqadda Ingiriiska oo 26kii bishan dhaqan galay gobolada lagu qabtayna waa gobolada Texas Mississippi iyo Arkansas iyagoo dhaxmaraya goboladaasi dhamaantoodba waa gobollo Republicana iyagoo dhaxmaraya ayaa la qabtay luqadda Ingiriiska ku hadli waayeen leysinkii gabi ahaanba waxa la yiri Mareykanka mar dambe kuma dhaxwadi kartaan gawaaridan taraagada ah waxa muuqanaysa sidoo kale hadii mar labaad la qabto iyagoo gaari ku dhaxwadaya in ay mutaysan karaan ganaax lacageed oo u dhaxeeya 10,000 ilaa iyo 50,000 hadii luqadoodii Ingiriiska aysan waxba ka bedelin ilaa iyo 80,000 oo darawalo taraagada ah oo wadanka Mexico u dhashay ayaa Mareykanka si maalinle ah gawaarida ugu kaxeeya ayaa la leeyahay taraagada 70% dadkaasi luqadda Ingiriiska kuma hadli karaan 20 ilaa iyo 30% ayaa waxay awoodaan inay luqadda Ingiriiska ay communication ay ku sameeyaan marka arintan waxay caqabad ku noqonaysaa alaabihii la isaga gudbin jiray wadamada Mareykanka iyo sidoo kalena Mexico dhaqaalahana saameyn ay ku yeelan kartaa marka sharciga isla markiiba waa uu dhaqan galay dhinaca kale marka gaariga taraaga la wadayo saacado badan ayaa la shaqeynaya qofku waa uu daalaya mararka qaar qofku hadii uu daal dareemo waxa wanaagsan meelaha loogu talagalay in la seexdo inuu ku leexdo oo seexdo hadda sabtidii wadada I-20 Kaufman County degmada la yiraahdo Kaufman ee gobolka Texas nin darawal traaga ayaa waxa uu hurday isagoo gaarigii wada traffic waliba shil kale ayaa hore ka dhacay traffic
gabi ahaanba waa ay taagnaayeen ama slow ayay ku socdeen marka isaga cruise control ayaa ugu xirnaa ilaa hadda baaritaan ayaa lagu sameynaya black boxkii uu lahaa taraagida sida diyaaradaha iyo taraagidu waxay leeyihiin sanduuqa la yiraahdo black box oo loogu talagalay inuu duubo gaariga xawaaraha uu ku socday inta saacadood oo la waday waxyaabahaas oo hadda baaritaan ayaa lagu sameynaya marka ninkan Florida ayuu ka soo jeedaa waa 27 jir waxaa la yiraahdaa Alexis Osmani Gonzalez Campioni ninkan ayaa waxa uu gaarigaas traaga sida aad aragtaan oo madaxiisu uu gaduudan yahay waxa uu ku dhuftay ilaa iyo 7 gaari ayuu shil geliyay 6 qof ayuu qudha ka jaray qof waliba qoys 4 qof ka kooban ayaa ku jira oo hal gaari saarna hal gabar ayaa ka badbaaday oo 20 jir oo iyadana leeyahay hospital ay ku jirtaa lugna waa ay ka go'day haweeney kale oo iyadana magaceeda in la yiraahdo Nicole Gregory iyadana gaari kale wadatay waa ay geeriyootay marka ninkan 6 qof ayuu qudha ka jaray 7 gaari waa uu burburiyo xitaa track kale uu ku jiro ninkan waxa uu qirtay markii booliisku u yimaadeen in uu hurday isagoo gaariga wado arintaas hadda waxa ay sababaysaa marka in company-ga uu shaqeynaya oo la yiraahdo Hope LLC oo shaqada bilaabay sanadkii 2021 la leeyahay ilaa iyo 195 darawal ayuu haystay meelaha qaarna 80 ay leeyihiin ilaa iyo 193 track ayuu lahaa oo 65 meelaha qaar ay leeyihiin traagada uu lahaa in hadda baaritaan lagu sameynayo in violation ay ku sameeyeen in arrimaha la xiriira saacada dheeraad ah in darawalada ay ku qasbayeen inay shaqeeyaan marka ninkan hadda 6 dambi oo ah isku dil ayaa lagu soo oogay iyo sidoo kalena in gaari oo ah deadly weapon uu ku geystay in shilkaasi uu ku geystay marka ninkan hadda waa uu xiran yahay waxaana la soo taagi doonaa maxkamad iyadoo la leeyahay waqtigaas uu shilka dhacay ka hor waxa uu soo baasay goob tagawarida lagu miisaamo culayska wadaan weyd stationada laakiin xirnayd hadda marka gudoomiyaha gobolka Texas xitaa waxa uu amray in company-ga uu shaqeynaya baaritaan lagu sameeyo haddii shil uu dhaco oo company ah leedahay hadda Soomaali fara badan ayaa company leh xitaa waxa la leeyahay hadda company-gan xafiis ma uusan lahayn marka company-gaad waa inuu leeyahay address iyo xafiis loogu soo hagaago haddii shil uu dhaco marka company-ga ayaa dib loogu laabanaya inta violation uu sameeyay ma hore shil ayuu u galay imise qof ayaa ku geeriyootay imise qof ayaa ku dhaawacantay hadda marka waxa la leeyahay in company-ga baaritaanka marka lagu sameeyay waxa la ogaaday 24 bilood ee la soo dhaafay ama 2 sano in ay 3 qof ay dhaawacay u company-gaasi darawaladu ay u geysteen isla markaana company-ga violation-kiisu waa uu yaraa laakiin hadda baaritaan dheeraad ah ayaa lagu sameynaya marka waxa sidoo kale lagu sameynaya darawalkaas shilka geystay in saacadihi uu ku shaqeynaya waa la fiirinaya medical history-giisa ama caafimaadkiisa waa la fiirinaya haddii company-gu uu ku xadgudbay in waxa tabardarrada qofku marka in gaariga saacado fara badan uu wado oo saacadihi loogu talagalay aan hayna baaritaan ayaa sidoo kale lagu sameynaya marka Soomaalidu waa inay arintaasi ka digtoonaadaan oo haddii aad daal ama hurdo dareento waxa wanaagsan in gaariga meelaha loogu talagalay rest-area-da ama gas station-da intaad ku leexato aad seexato marka nasato kadibna aad dib saacadahaadii aad u bilaabato marka waa arrin muhiim ah dadka darawalada gawaarida inay sameeyaan sharciyada cusub ee ka dhaqan galay gobolada Florida iyo Texas maxay yihiin oo muhiim ay tahay dadka goboladaasi degan iyo dadka gawaarida ku dhex kaxeynaya inay qasab tahay inay ogaadaan gobolka Florida haddii aan ku hormaro talaadadii oo 1 bisha ahayd waxa ka dhaqan galay sharci xawaaraha ama speed limit-ka loogu talagalay wadooyinka haddii aad dhaafto in markii hore waxa dhici jirtay ama ticket lagu siiyo sidoo kalena ama digniin lagu siiyo laakiin hadda sharcigan dhaqan galay waxa uu muujinayaa haddii speedka loogu talagalay wadada 50 amaba ka badan adigoo ku socda la arko waqti xawaarihi loogu talagalay waxa mutaysanaysa inaad 30 maalmood xabsi ku jirto waaba la isxirayaaba hadda xabsi ayaa soo baxay haddii 50 mile amaba ka badan speedka loogu talagalay wadadaasi adoo ku socdo gawaariga uu booliisku istaajiyo 30 maalmood oo xabsiya ayaad mutaysan kartaa ama waxaad bixinaysaa $500 oo ganaaxa amaba labadaba waa isku mutaysan kartaa haddii marka lagu arko 100 mile amaba ka badan xawaarihi loogu talagalay wadada adigoo ku socdana 3 bilood ama 90 maalmood oo xabsi ayaad mutaysanaysaa lacag $100 waa loo ganaaxaya haddii marka waa marka labaad haddii qofku isagoo ku celcelinaya la arko oo mar labaad la qabtana waxa la leeyahay laysankiisa ayaa suspension lagu sameynaya ama laga joojinaya muddo 1 sano ah marka dadka gawaarida ku dhex wadaya gobolka Florida gaar ahaan taraagada sharciyadaasi waa inaad ogaataan hadda waaba la isxirayaaba 30 maalmood
maalmood ayaa lagu xiri karaa ama 90 maalmood haddii speedkii loogu talagalay wadada wax ka baxsan adigoo ku wadaya la arko. gobolka Texas sidoo kalena kowdii bisha oo talaadii ahayd waxaa ka dhaqan galay in meesha laga saaray temporary paper number plate-ka waxyaabaha la yiraahdo. qofku marka uu gaariga iibsado waraaq ayaa loogu dhajin jiray oo number uu ku qoran yahay si ku meel gaara muddo 2 bilood ama 60 maalmood inuu ku wadan karo. hadda arrintaasi waxay sababtay in dadka dambiyada geysanaya gawaarida soo dhacaya in ay koobi ka samaystaan waraaqahaasi oo ay fududahay waraaqahaasi number plate-ka ee ku meel gaarka in qofku intuu koobi basta yiraahdo isla markiiba uu daabacdo gaarigiisa uu ku dhajisto ama dadka insurance-ga aan lahayn waxyaabahaasi ay sameeyaan. arrintan sanadkii 2022 markii boolis uu ku geeriyooday isagoo ceyrsanaya nin gaari soo xaday oo number been abuura oo tag been abuura uu ugu dhagan yahay ayaa waxaa laga soo saaray sharci oo Congress-ka gobolkaasi ay soo saareen oo la yiraahdo House 718 ama 718 muddo 1 sano ayaa la siiyay marka BMV-da iyo shirkadaha gawaarida gada in ay ka shaqeeyaan sidii sharcigan uu dhaqan gali lahaa. BMV-du marka waxay soo saareen taargo ama number plate oo bir ah oo la siiyay goobaha gawaarida lagu iibiyo. qofku markuu gaariga iibsadaba halkii number plate ama taargo waraaqa loogu dhajin jiray hadda waxaa loogu dhajinayaa mid bir ah ilaa iyo tiisa black and white-ka ama cadaanka iyo madowga isugu jirta oo sida rasmiga gobolka Texas looga isticmaalo ay uga soo baxayso. marka 4 nooc oo kala duwan ayaa la sameeyay marka oo number plate oo ama taargo bir ah oo qofku uu qaadanayo marka gaariga uu iibsado. dadka gobolka Texas degan si rasmi ah waa inaad u ogaataan. midda koobaad waxay tahay in taargada birta ah ee purple-ka ah waxaa loogu talagalay qofku marka uu gaariga uu iibsado laakiin weli uusan ku qancin uu doonayo bal inuu soo tijaabiyo ama uu soo kaxeeyo. midda buluuga waxay tahay sidoo kalena waa iyadana mid ku meel gaar ah oo qofka marka gaarigaasi uu tijaabo intuu ka qaato gaariga meesha uu ka iibsaday uu doonayo bal inuu iska soo tijaabiyo marka uu soo laabanayo waa tan buluuga. tan green-kana waxay tahay marka gaariga aad gobol kale aad doonayso inaad ka diiwaan geliso oo gobolkan aad ka iibsatay ayaa lagu midaasi green-ka ah la ogol yahay inaad ku xirato. halka midda ugu dambeysa ee red-kana ay tahay iyadana waqti xadidan oo 30 maalmood oo kaliya inaad ku wadan karto. marka arrintaasina ka digtoonaada dadka gobolka Texas degan. hadda dadkii horey u qaatay number plate-ka waraaqaha ah ilaa iyo 1 bisha September ayay haystaan oo ay ku sii wadan karaan. laakiin wixii xilligaasi ka dambeeya waraaqda oo temporary oo number plate-ka ama taargada ku meel gaarka ay waraaqda gabahanba gobolka Texas qofkii lagu wato lagu qabto isagoo gaari ku wato arrintaasi waa qalad. boolisku waa istaajin karaan waana ticket ayaa arrintaasi lagu siin karaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.